وهاجاك سيد الله وسعطان عذر كان كوفيد-19 كأيان نقضي مد عالم كأدو أفيي كارهان وضن كان مريكان كأيان نقضي وضن كدت كأوبضني أي أول إنتين عذر كاس وحد بحسيد مدن إن قبل الضل كان يكون كلا بدنيهين وحيالا عذر كان هذا بوعان arrimahan ka waraysan doona Cawaale Cabdullaahi Cawaale ku soo dhawow aad iyo aad balmaasad Cawaale sida aad la soconaba waxaan ognahay in gobolada dalka Mareykanka COVID-19 ku aad ka u saameeyay ay ku kala badan yihiin sida hore u sheegnayba sida gobolka New York oo kale iyo gobolka Minnesota oo kale iyo gobollo kala duwan in gobol walba number gooniya uu leeyahay oo dhimashada iyo waxyeelada uu gaarsiiyay ku kala duwan yihiin sida arintaasi u dhacday cabsata runta aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaashana waan salaamayaa waa runta cudurkani COVID-19 horta waxa uu noqday mid aad u aafeeyay caalamka oo dhan gaar ahaan wadankani Mareykanka haddii aan hordhac horta ku yara bilaabo dadka badankooda waxay isweydiinayaan wadankani oo ah wadanka ugu dhaqaalaha sareeya oo wax walba caalamka ugu horeeya sidee u suurta gashay in uu cudurkaasi aad u aafeeyo oo dad badani ay ku dhintaan jawaabaha markaanu soo baadnay waxa kamida in ay sababta keentay in cudurkani in dad badani uu ku dhaco oo dad badani ay u dhintaan dalka Mareykanku isla markaana in wadankani la daalaadhacayo cudurkan xakameyntiisu ay tahay qorshe xumo wadanka ka jirta waad ogtahayo si kasti oo aad wax u haysato ama imkaaniyaadka aad haysatay iyo awooddaadu ay u badan tahay haddii aanad lahayn qorshe ama qorshe cad oo aad wixii aad hawshii ku qabanayso waxba ma qaban kartid marka sababaha wadan muxuu ahaa uu cudurkani u sii faafay ilaa imika loogu maaralaayay wadanka Mareykanka waxaa kamid ah qorshe xumo iyo hoggaan xumo waad ogtahayo madaxweynaha Mareykanku ma aha sida la sheegay lagu eedeynayo nin u diyaarsan hogaaminteedii marka dhibaatadu waxay ka dhacday qorshe la'aanta madaxweynuhu isaga oo dhayalsaday markii hore dhayalsi ka yimiday isla markaana haddii aan dib ugu yar noqdo maamulkii ka horeeyay madaxweyne Obama markii uu cudurka Ebola uu Afrika ka dilaacay Obama wuxuu sameeyay koox yacnihii uu hoos tagtay aqalka cad oo khubaro iskugu jirta muxuu ahaa in dad ku takhasusay muxuu ahaa cudurradani faafa kooxdaasi waxa uu ka dalbaday oo miisaaniyad iyo budgetba uu sameeyay oo ka dalbaday in ay diyaariyaan qorshihii lagaga hortagi lahaa haddii cudur noocan oo kale ama kan laftigiisu uu Mareykanka ku soo faafo kadib madaxweyne Donald Trump markii uu xafiiska markiiba uu yimiday isaga oo yacnihii ka duulaya wax walba oo Obama uu taabtay in uu baabi'iyo ayuu kooxdaasi kala diray marka dhibaatadu waxay ka timid marka hore qorshe la'aanta iyo kooxdaasi loo diyaariyay inay marka horeba ka hortagaan in uu kala diray haddii aan su'aashaadii u soo noqdo maxay gobolada dalka Mareykanka ay ugu kala bateen tusaale ahaan labada magaalo ee wadanka ugu waaweyn bariga iyo galbeedka ayay ku yaalaan waa New York City oo ku taala gobolka New York iyo Los Angeles oo ku taala gobolka California sidaad ogtahay magaalada New York City iyo gobolka New York ba aad ayuu xanuunkani u aafeeyay oo ilaa 300,000 oo qof ayuu maraya dhimashada maxaan jeedaa dadka laga helay dhimashaduna waa meesha ugu badan tahay marka aad eegto in gobolka California oo magaalada ugu weyn ee Los Angeles tahayna sidaas uma sii aafeeynin horta guud ahaan aafada iyo waxay ku xidhan tahay maamulada goboladaasi ka jira sida ay ugu diyaar garoobeen New York laakiin waa ka duwan tahay sida ay goboladaasi markii ugu horeysay ay uga gaashaanteen cudurkaasi waxay ku xidhan tahay maamulka gobolka xataa xisbiga uu ka tirsan yahay xisbiyada jamhuuriga xisbiga jamhuuriga gobolada ay maamulaan ama gudoomiyaasha ay maamulaan xisbiyada xisbiga jamhuuriga waa dheelsanayeen oo waxay talada ka qaadanayeen madaxweyne Trump haddii aan ku horeeyo sababta keentay in New York
New York City horta ma dadaal yaraa oo gudoomiyaha gobolkaasi la yiraahdo Andrew Cuomo iyo maamulkiisuba si fiican ba uga gaashaanteen laakiin kulay dhowr jeerna waa tagtay laakiin haddii aan u sheegno dadkaana weligood New York tigina ama ku nool caalamka intiisa kale magaalada New York City aad bay uga duwan tahay magaalooyinka kale ee dalkan Mareykanka uu magaaladan horta waa magaalada ugu dadka badan guud ahaan dalkan Mareykanka waana caasimadii dhaqaalaha waxyaabaha ay kaga duwan tahay waxa weeye sida waxa weeye magaalo laga isticmaalo gaadiidka dadweynuhu ay aad u xoog badan yihiin sida tareenada basaska muxuu ahaa taksiga magaalooyinka kale ma leh oo tareenada aad gaadiidka dadweynaha tareenada aad looma isticmaalo marka cudurkani markii uu soo galay magaaladan waa sidaan sheegay waa magaalo dhaqaale waxa looga imanaya muxuu ahaa gobolka wadanka Mareykanka intiisa kale waxa kale oo ay leedahay laba garoon diyaaradeed laba airport oo caalamiya JFK iyo LaGuardia kala yiraahdo oo caalamka ku fulan oo maalintiiba in ka badan 1000 duulimaad oo caalamiya ayaa imanaya intaas oo 1000 oo duulimaad oo maxalli oo Mareykanka dhexdiisa ka tagay baa imanaya waxa kale oo furan waxay leedahay muxuu ahaa badweyntii Atlantic ku furanta waxay leedahay dekado maraakiibta caalamiga yimaada marka waxyaabahaas waxa ay leeyihiin waxa markiiba magaalada soo galay kumanaan cudurkaasi qaba sidaa darteed maadaama ay Andrew Cuomo wuxuu yiri oonta inagu ba aragnay magaaladu dadkii waa magaalada dadkii ay u badan meel walba waxa jooga dad fara badan baa lagu jooga maqaaxiyihii meelihii tareenada laga raacayay muxuu ahaa shaneemooyinkii hoteeladii ugu weyn waa magaalo aad caalami ah marka taas baa keentay intii aanan muxuu ahaa cudurkani aan aad ba loo ogaanin waxay leeyihiin waxa ku dhex wareegayay 100,000 oo dadka cudurka qaba intii aan la bilaabin dabcan qaladkuna wuxuu ka yimid dawladda federaalku waxa ay la daahday muxuu ahaa qalabka baaritaanka qaladaadka ay sameeyeen dawladda federaalku waxa weeye waxay diiday markii hore qalabkii ay ogolaadeen ama ay sameeyeen hay'adda caalamiga caafimaadka caalamiga ee la yiraahdo WHO marka iyaga oo aan sabab la'aan ayaa u diideen oo hay'adda ka hortaga cudurrada faafa ee federaalka ee la yiraahdo CDC waxay tiri standardkii ama heerkii ay gaarsiisanayd qalabkaasi wax lagu baarayo ay keeneen muxuu ahaa hay'adda WHO maaha heerkii Mareykan ahaan standard ahaan waxayna ku guul dareysteen markiiba in ay qalabka bedelkiisa sameeyaan intii ay muxuu ahaa ay isku dhex wareegayeen ay cudurkaas ku faafay magaaladaas way magaalo ay aad dadkeedu ugu badan ka jiro waxa kale oo aan la wadaayadana gobornarku sheegay in meeshii madaxweyne Donald Trump siyaasad ahaan iyo China ay haysteen meeshuu China cunaqabataynta ku sameeyay haduu Europe ku sameyn lahaa Europe oo furan ba China u xiray ayuu xiray marka Europe buu ka soo galay cudurkani buu leeyahay marka waa qorshe xumadaan marka horeba soo sheego mid jiran qorshe cad oo dawladda federaalka oo madaxweynuhu qodbada uu jeediyay waxay noqotay mid dadka jahwareer ku siirida marka muddo ku dhow bil ayay lumisay hay'addaasi CDC-du in ay muxuu ahaa ay soo bandhigto qalabkaas wax lagu baarayo qalabkaasi markay sameeyeen qalabkaas wuxuu u baahan yahay in ay ogolaadaan oo ogolaasho ka helo hay'ad kale oo federaal oo iyada lamid ah loo yiraahdo FDA oo iyadu muxuu ahaa tayada wixii la soo saarayo ama cunto ahaado aduu wixii gudaha wadanka lagu isticmaalay waa inuu hay'adaasi soo maro taasina waxay qaadatay 2 toddobaad intaasna cudurku waa dhex wareegay oo sidaa sheegtay falaydada ama duulimaadyada Europe ka imanay dadku de China toos uga yimaadaan Asia toos uga yimaadaan waxay soo mari karaan Talyaaniga lagu limanaya waxay soo Talyaaniga baa laga imanay Europe baa laga imanay marka New York waxa isku biiray sida ay magaaladaas u samaysan tahay oo maaha waa dad iyo falaydada airportada furan iyo muxuu ahaa gaadiidka dadweynaha aad ka loo raacayo waad ogtahay magaalada gaari kuma dhex wadan kartid gaariga meel aad dhigata ma jirto
taas waa sababta uu ugu faafay cudurkani magaalada New York City iyo guud ahaan gobolkaasi laakiin kuma iman dadaal yari oo waxaad ogtahay in uu mar walba shir jaraa'id uu qaban jiray muxuu ahaa maalin walba qabto ninka la yiraahdo gudoomiyahaasi oo la Andrew yiraahdo Cuomo. Andrew Cuomo waxa kale oo xitaa uu codsaday in la siiyo muxuu ahaa oxygen oo inuu ku filnayn mar walba uu soo gudbinayay xaalad degdeg ah sida uu muxuu ahaa gobolkaasi ama magaaladaasi ugu baahan yahay. uu cudurkaasi u saameeyay taasi waa taas su-aasha qaybteeda kale haddii aan u gudbo oo ah yacnihii gobolada kale tusaale ahaan California oo ah gobolka ugu dadka badan kuna taalo muxuu ahaa magaalada ugu weyn ee Los Angeles muxuu sidaa yacnihii Ugu kala si gaabisa waxyeelo sidaas u mugeysanay saa horeba u sheegnay waa sida uu gobolkaasi u samaysan yahay iyo hogaaminta gobolkaasi governorka ama gudoomiyaha gobolkaasi waxa la yiraahdaa Newsom waxa uu markiiba sameeyay cudurkani meelaha laga helay waxa ugu horeeyay waxa kamid ahaa gobolka Washington oo ku yaala muxuu ahaa galbeedka oo California waxa u dhaxeeya gobol kaliya oo la yiraahdo Oregon California waxyaabaha lagu amaanayo ee ay sameysay waxa kamid ah xuduudihii xirtay waxa ay sameeyeen markii cudurku uu soo gaaray xeebta galbeed ee wadanka Pacific markiiba waa diyaar garoobeen waxa uu sameeyay gudoomiyaha gobolka waxa uu sameeyay team koox khubaro ah ayaa uu sameeyay oo ku takhasusay oo muxuu ahaa يعني كورتكا waxa uu la kaashaday shirkadaha tiknoolajiyada oo adagtayo gobolkani waa gobol ugu dadka badan waa gobolka ugu dhaqaalaha badan waxa ku yaala shirkadaha tiknoolajiyada oo dhan ba ku yaala magaaladan kale Los Angeles waa magaalada de hoyga fanka oo waxa la wixii madadaalo iyo filmaan iyo jilayaasha wixii oo dhan ha marka waxa uu sameeyay waxa ay darseen teamkaasi oo waxa uu xarun uga sameeyay caasimada gobolkaasi oo la yiraahdo Sacramento waxa uu la kaashaday jaamacadda gobolkaasi ugu weyn oo la yiraahdo muxuu ahaa University of California gaar ahaan qaybteeda Los Angeles oo marka la soo gaabiyo waxa la yiraahdo UCLA waxa ay sameeyeen marka uu fiirsaday sida uu yacni in fariimo jahwareeri ay ka imanayaan aqalka cad waxa ay sameeyeen in ay iskaga maarmaan macluumaadkii ay ka helayeen dawladda dhexe oo iyagu isku tashadaan waxa uu sameeyo si hoose ay u sameysteen isagoo la kaashanaya qaybta caafimaadka ee macadadaas iyo muxuu ahaa jaamacaddaba in ay sameystaan qalabkii lagu baadhayay tallaabooyinka ugu horeeyay qaadayna waxa weeyaan xayiraad guud in la xidho markiiba shaneebooyinkii meelihii loo dalxiis tagay xeebo waaweyn oo loo dalxiis oo aragtay oo San Diego iyo Los Angeles iyo San Francisco dhammaan waa la wada xiray waxa kale oo iyaguna aad loo amaanay in mayrada magaalooyinka qaar sida San Francisco waxay magaaladii ugu horeysay ee bando kusoo rogtay magaalada gebi ahaanba lagu soo rogo taas oo aad looga amaanay oo cudurka gacan ka geysatay in la xakameeyo cudurkaas waxyaabaha kale waxa weeyaan taasaa kamida waxa la xidhay meelihii loo dalxiis tagayay ee dadka badan ee kumanaanka ah sida Disneyland Universal Studio meelahan filmaanta lagu matagay dadku la daawado waxa kale la xidhay meelihii lagu caweynayay oo dhan sida baararkii iyo waxyaabaha noocaas shaneemooyinka oo kumanaan iyo kumanaan ayaa la xidhay taasi markaa waxay keentay in cudurkii xawligii uu ku socday uu hoos u dhaco kadibna waxay bilaabeen baaritaankii iyaga u gaarka ah taas baa keentay sababahaas ayaa keentay in California meesha ugu dadka badan oo la filayay inay xudun u noqoto oo cudurkaasi uuna sidaas u saameeyeen waxa weey waa magaalada oo magaalada goboladaas waa gobollo aad dhul weyn magaalada Los Angeles ma aha sida New York magaalada tareenada iyo waxyaabo noocaas ay ku badan yihiin marka waxay noqotay in xayiraad ay noqoto mid saameynteedu ay aad u sareyso marka taas waxyaabahaas sababay in labada magaalo ee wadanka ugu waaweyn
ay midna uu ku bato midna uu ku badan waayo. miyaanay halkaasi kaga muuqan cawaale dhinaca siyaasadda haddii la eego xisbiga jamhuuriga ahi wuxuu ku feelgaroobay ama ku khasaaray inuu doorasho labaad isu soo sharaxaan ama wax iyaga taageero ay ku heli karaan inay halkaas ay ku lumiyeen oo shacabkiiba ay u arkaanba inaysan yihiin dad aan waxba qaban karinba. laba qodob ayaa ku hoos tuugan muxuu ahaa su-aashaasi. xisbiga jamhuuriga taageerayaashiisu waxaa la leeyahay waxa uu waxyeeli karaa musharaxiinta hadda u sharaxan golayaasha muxuu ahaa wakiilada iyo aqalka golaha guurtiga ee sanadka waxbuu yeeli karaa. laakiin madaxweynuhu waad ogtahayoo wuxuu leeyahay taageerayaal rigli ah joogto ah oo taageerayaal buuxa oo isaga ku indhala wax kasta hadduu sameeyo. xataa waxa uu yidhi waad ogeyd waxyaabaha ugu yaabka badnaa in uu yidhi waxaad cabtiin muxuu ahaa waxaan wax lagu nadiifiya jaafelka uu yidhi caba. ninka sidaa yidhi mar walba muxuu ahaa bixinaya macluumaad dadka jahawareerinaya, haddana waxa weeye taageerayaashiisu hoos uma dhaca. laakiin arrinkan waxa uu yeeli doonaa madaxda kale ee xisbiga jamhuuriga gaar ahaan kuwa sanadka u sharaxan. waxaa hadda imika halis ku jira gudoomiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga ee sanadka oo ninka sanadka maamulaha waxa la yidhaha Mitch McConnell oo laga soo doorto muxuu ahaa gobolka Kentucky. doorasho ayuu galayaa bisha November. kaasaa laga yaabaa inuu ku waayo waxaa kaloo laga yaabaa in ay galaafato musharaxiintii ama xildhibaanadii jamhuuriga ahaa ee iyagu u codeeyey markii xilka la rabay Donald Trump in xilka laga xayuubiyo. kuwaas baa laga yaabaa inay galaafato. kuwa waxaa jira iyagu nugul oo gobollo dimuqraadiga u janjeera laga soo doortay laakiin Republican ama jamhuuri, sida gabadha la yiraahdo muxuu ahaa Susanna Collins oo iyadu laga soo doortay muxuu ahaa gobolka Maine. gobolkaas waa gobol dhinaca dimuqraadiga u janjeera laakiin iyadu waxay ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga waxayna ka mid tahay dadkii taageeray u codeeyey Donald Trump inaan xilka laga qaadin. waa tahay waa mahadsantahay cawaale. intaa waxaynu ku dhamaaday barnaamijkeennii Himila Show oo anigoo Cabdisaar Axmed idinla socodsiinayay. waxaana martiin oo ku ahaa Cawaale Cabdulaahi. tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa intaas iyo nabadgelyo.